waxyaabaha qaar la yaab ayay leeyihiin markaad u eegto siyaabaha iyo macquul ahaanshahooda. halkani waa nin farsamo yaqaan ah gurigiisana ku sameynayo tijaabo. maraayadan waxba kama dugno, gaarigu waa VW, gaarigan waxaa soo saaray Germany, maraayadiisuna kama adkaa gawaarida kale, laakiin xaaladiisa oo farsamaysan awgeed ayuu ka shaqayn doonaa habka ugu wanaagsan ee maraayadana aysan ku jabaynin. tani waa qaybta koowaad, waa garaamku waa nus kiilo waxaan dhamayn, laakiin wuxuu samayn doonaa cabirku waa rubac, wuu bedelay levelka labaad ayaa loo gudbay, taas way jabi weysay, laakiin wuxuu ku barobeynayaa midkan oo ah 500 gram kaasoo ah rubac u dhiganto. kii hore wuxuu ahay tumin qiyaastii, laakiin tani waa waxaa weeyaan rubac cabirka lagu cabiro. okay, way jabi weysay, waxaa loo gudbi doonaa stage saddexaad, kaasi oo noqon doono midka lagu ogaa doono way soo celisay 500 gram baa lagu dhitay cabirka, laakiin way soo noqotay, way jabi weysay. hagaag maxaa la samayn doonaa? muskilada waaye 500 gram oo wax yar dhiman waaye cabirku, stageka saddexaad. kan ayaa la qiyaasayaa inuu maraadan jabsho haddii lagu dhifto, waana sababta loo rabo inaysan mar dambe u jabin, laakiin waa ku guuleysayay wayna jabtay. ujeedadiisu maaha inuu maraayada jebinayo gaariga uu tug yahay, laakiin wuxuu doonayaa inuu ogaado waxa jabi kara maraayadan iyo sababtii ugu hortegi lahaay shayga lamid ah oo gacan laga soo tuuray ama gacanta lagu haayo inuusan mar dambe maraayada jabin. maraayada gudaha ka gurmanaya xilliga wuxuu saarayaa koolal loogu talagalay marka ugu horeyso, taasi oo ka caawin doonto in la saaro double glass nooca la yiraahdo laga dhigo, si aysan mar dambe uusan u jabin shayga cabirkiisu inta yahay, inuusan mar dambe u jabin. pencil buu gelshay, galaaska buu saaray, qalabka lagu jaro maraayadaha buu ku jarayaa iminka ee loogu talagalay. hagaag waa uu jaray, xilliga waa xilligii la geli lahay, markaa la geli lahaa wuu ku celshay, goomihii u gelshay, maraadii u fadhiisiyey. hagaag dadaal dheer kabacdi wuu xirayaa, xiristii uu dhameeyey. xirxirista hadduu dhameeyey wuxuu sameynayaa xirxiristii cabirkii u qaatay wuu ku soo tuuray, way soo noqotay. hagaag wuxuu sameynayaa marka haddana asigii soo qaatay haddana stagekii inuu jabayo in kale ku baroweynayaa. waa soo faniyay buriska, wuu jabin waayey, waana sidii looga baahnay, wuu u celinayaa. waa soo fanina mar kale, mar saddexaad ugu dambeyn maye mar kale baa loo celinayaa, gaariga dhan baa nuuxsanaya. like and share sar fadlan please, naguna soo bir Kedis Media. mahadsanid.